بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta jeclaan lahayn inaan warbaahinta la wadaagno waxyaabihii noo qabsoomay hadii aan nahay guddiga ka baaran degista arrimaha doorashooyinka 2020ka ee sida dhammaan aad wada ogsoontihiin la magacaabay ka bacdi markii kulanka madaxda qaranka uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb madaxda Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug inta ka bacdi guddigii waxay ku kulantay magaalada Muqdisho waxaanuna isla meel dhignay qorshayaal ku meel gaar ah oo ku sii wada shaqeyno iyo mabaadii aan ku sii wada shaqeyno si aanu farsamo ahaan talooyin wax ku uga keeno arrimaha doorashooyinka ee madaxdu ay dhawaan ka gaari doonaan go'aamo marka la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb tabaabashihii iyo hawlihii aanu intaasi qabanay waxa kamid ahaa inaanu bilownay inaanu la tashano lana kulanno daneeyaasha kala duwan ee arrimaha doorashooyinka saameynta ku leh maanta waxaanu fursad u helnay inaanu la fadhiisano madaxweyne Axmed Qorqor Galmudug iyo madaxweyne Cabdicaziz Laftagareen oo labaduba nagu soo booqday goobtii aan ku shaqeynaynay talooyin iyo hoga tusaaleyn la wadaagay inta ka sokow waxaanu kaloo maanta kulan la yeelanay muddo qaatay oo aan aad u xog wareysanay guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed xubno ka tirsan iyo gudoonkaba oo iyana nala wadaagay aragtiyihii iyo way aragnimadii ay ka dhaxleen 5 sano ee arrimahan ka soo shaqeynayeen waxaanu kala dabacsanahay bari inaanu la kulanno xisbiyada ka jira dalka iyo bulshada rayidka ururada haweenka inta aanan u socdaalin magaalada Dhuusamareeb waxaanu rabnaa markaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno inaanu tiim ahaan ururinayno talooyin dadka dhageysanayno ka bacdina farsamo ahaan sidii arinta aanu u gudageli lahayn ee aanu marka dambe madaxda ugu fududeyn lahayn inay go'aamo ka gaaraan arrimaha ay hadda meel wanaagsan oo bilowga noo marayso inahaas ayaanu la wadaagaynaa